ayo calanka Soomaaliyeed waa astaan shaydaan waa astaan diimeed heesta calanka Soomaaliyeedna waa hees loogu heesayo ama cibaado loo muujinayo kalinimo wax weydiisi calanka Soomaaliya especially xidigta oo u taagan shaydaanka la yiraahdo Iblis calanka Soomaaliyeed iyo astaantiisa iyo xidigta wuxuu ku dhow yahay hal qarni dad aqoon-yahano ayaa soo alifay culimo ayaa joogtay intaas maadiga ahaan lahayd iyo diiniga ahaan lahayd intuba wax dhibaato ah kama jirin waxa si gaar ah idinku marka aad hadda u aragteen oo xilligan aad u soo shaabaxdeen bal ma faahfaahay wariye runtii waxa mudnaan leh marka wax cusub ay yimaadaan in la isweydiiyo waxaan maxay yihiin laakiin inaan lagu mashquulin maxaad idinku u aragteen annagu waxaan dad mutaalimiina waxaan soo baranay wax dabcan Soomaalidu aysan hore u baran markaan ku leeyahay ka sheekeynay aqoontayda waxay muujinaysaa macnaha deeply sida aan u aqaano waxaan waxay yihiin dhaqamada westernka christianka diimaha kala duwan waxaas oo dhan waxaan fahamsanahay marka anigu waxaan fahamsanahay waxaan waxay yihiin macnaheedu taagan yihiin waxaan ku cadaynaya maantay oo tusaale kugu filan in aan sharaxno kaliya heesta calanka ee Soomaaliya waxay ku tusaysaa heesta calanku markaa sharaxadeed inay tahay hees lagu sheegayo kalinimo loo qirayo shaydaan ama calanka ama xidigta in la sheegayo in asaga la weydiisanayo kaalmo in la sheegayo in asaga loo ooyo ama loo kaco ama la caabudo haddii taasi ay xaqiiq tahay waxaan ku hadlaynaa luqadii Soomaaliga yihiin umalay maayo su'aasha meesha ku jirtaa inay tahay saad ku ogaateen balse su'aashu inay tahay sideen ku bedelnaa sideen isu badbaadinaa ilaa waxaan dad islaama ma nihin dad shaydaan caabuda waxaan waa naloo qariyay waxaan noo qariyay gumeysi notsale heesta calanka kale notsale bal sidee ay u tahay shaytaanka aad baad u mahadsan tahay heesta calanka dadka Soomaalida ahi waxaan sameynaa horta survey wax la dhaho ama baaritaan intaana runtii aanan arintan soo bandhigay markaan baaritaankii sameynay dadka Soomaalida heesta qaranka ee Soomaaliya ee dastuurka ku qoran waa heesta dastuurka noogu qoran oo qaado Cabdullaahi Qarshe ee uu alifay ninka la yiraahdo Xuseen oo Faarax ay alifeen ninkaas alif Cabdullaahi Qarshe qaado waxay leedahay heestu qaybteeda koowaad qolaba calankeedu waa cayn inaga keen waa cirko kale aan caan lahayn waa qaybta koowaad saddex sadar ay ka koobantahay qaybta labaad waxay leedahay xidig yahay cadi waadna ciidamisay carrada kaliga adiga curada carrada kaliga adiga curada in la yiraahdo xidig yahay cadi waadna ciidamisay oo micnaheedu yahay waadna dirtay adaan ku adeegnaa adaan ku shaqaynaa taxta amragaanahay we are your service in la yiraahdo waa shirki laakiin adiga u dhigay hadda laakiin marka waan cilmi ay noqoto in macnaha dadkii madax banaani uu helay oo calan la helay oo astaan lagu garta la helay meesha ahayn hadii su'aashaas aan dib kugu soo celiyo wariye inkastoo wariye su'aal la weydiinay oo isagu su'aasha u weydiiyo macnaha shacabka Soomaaliyeed weydiinayna ma banaan tahay in la yiraahdo xidigtii waadna caawis laakiin ila cabuday ma aha ما هديب اللي يريد معناها معناها إلا عبودة معها وعديني سين العبودة مد كوحك ترى وعديني سين العبودة هدي اللي يريد حدقي هاي عادي وان نعيد مس نعيد مس معناه أديك أنا الدري شقدا نودرتي وحد الوحجي عرضة كليجا كونكا عرضة معها لما دهين له الصومالي وقرنتها عرضة كليجا adiga u curada meaning wax ka horeeyahay ma jiraan wax ka sareeyahay ma jiraan laakiin way inga soo aragtida aad u tahay laakiin isleedahay hadalka waa sida markii oo kala wixii loo jiido oo loo dhigo macna saarfta u dhigaysa dadka oo aad leedahay waxa loo jeedaa in la xabudayo oo marse oo la jeedo qofkii uu suubiyay in oo ay asaanta u tahay aan ku darno mid labaad aan u gudubno marka تصدحات تصدي معناها قفكي دوت كان مثلا أو يرى هذا سداس معها وحنو قد بينا مد صدحات وحيلا هاي عشرة دلتي علاشنا سيدي عليجي عرض مريس عشرة دلتي علاشنا سيدي عليجي عرض مريس مين معناه تاسوحو ياهي مركي دلتي على أما حدق ياهي مركي آتي وحرمة أنجر أو دلتي بعضو قاموا أرجني واحد علاشنا كتر ترتي وحال وحي نوجري أو نبها أديك النوكين عافمات أديك النوكين وناك دراد دابان سانكونا تدل وجود دمبيسا كسي حيرانتاس وحي تهاي عوي ده معنى هذا أفكار سوماليجا عو وحلو يجري هذا وصدق معنى هذا عو ذا لو يقانو تكوحك تهاي وحويان مجا لوبحي بدنا الدمركا ومعنى هذا أيتها قف نصيب بدن عو ده معنى هذا وحويان نصيب لها ميا نصيب لها ما عو ده معناه وحويان إن لموجيه خشوع أما تواضع عبادة أو لو موجنا علنكي أو للي هاي ورها لوقرو معناها وينانت علنك ولي هاي ينصيب كأن كهلني إسق وحاكون رأسا مدة أوجس دم وحيلا لها تكوحك تأوجد دم بيسا وحيلا هاي أن شنتي عدود عدكي كم قناع هذا نوع اليو وادنا عاوس شنت الصومالية عدكي كم قناع علن يهو هذيك النوع اليو وادنا عاوس
haddii marka calankii loo qiray inuu nacawiyey loo qiray inuu asaguna ciidamiyo na diray loo qiray inuu wax dhibaato ay wixii dhamma asagu naga qaaday xidigtii la yiri xidig yahay caadi waadna ciidabisay oo waadna dirtay laguna dare la yiri cawoy dhaha ha loo qiro macnaha loo khushuuco oo tawaadu ha loo muujiyo hadii la yiri qof kasta oo diinta islaamka yaqaana ama aqli leh meel kale oo loo jeedi karo ma jirto dadka qaar macnaha surveyga intaan ku jirnay waxay yiraahdeen waxa laga wadaa ammaan baa laga wadaa ammaan markaan fiirino calaamada kale caalamka anagu waxaan sameeynaa baaritaan caalamka Soomaaliya kale kuma sameeyno waxaan sameeynaa research ugu yaraan 18 calan oo 18 wadan oo kala duwan hal wadan oo caalamkooda sidaan anagu u muujiya ma jiro in fact researchka markaan ku jirnay dad badan oo ajnabihi waxay noo sheegeen markaan baarayna caalamkooda oo Kenya la barbardhigaynay in aan nahay qowmiyad runtii aan waxa ay sheeganayaan iyo ficilkoodu isan israacsanayn waayahay adaa ku watay marka dib aad u fiirsaysaa oo kale gaar ahaan kuwa jaceelka oo kale qofka inuu leeyahay bilaayad aan ku helin waa ku dhimanaya adiga waan ku yeelaya kaasoo kale marka maxaad leedahay tan aad ku fasirtay inay cibaado tahay ma israacaan haddii aan iraahdo mesela anigu waxaas hadaan helin waa ku dhimanaya macna dhib ay soo gaaraysa hadaan iraahdo oo waxaan shakhsi ay yihiin labo waxay kala tahay laba shay shayna waa baahi adiga aad qabto waxaas tan helin dhib ay soo gaaraya leedahay shayna waa shay aad u qirtay cibaado u qirtay because xidigta iyo calanka waxa loo qiray cibaado weey xidigtii macnaha dad Soomaaliya oo dhan caawisali waxaan rabaa adoo iga raaliya inaan u gudbo wax la dhaho comparison inaan sameeyo calankan Soomaaliya sida anigu hore u sheegnaba Soomaaliya ma sameeyo xidigtana waxa dadka Soomaalida waxay aaminsan yihiin shanta Soomaali u taagan tahay uma taagna waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed la wadaago wax xidugta u taagan tahay really macnaha rasmiga xidugta u taagan tahay iyo caalamku meeshu ka yimid calanka Soomaaliya ee maanta haysano ee buluuga waxa la keenay wadanka Soomaaliya 1889 waxa keenay Talyaaniga 30 sano intuu san dhalan ka hor ninka la yiraahdo Cawaale waa sameeyay calankaasi laakiin Cawaale waa sida lagu hayo waraysi uu ku bixiyay oo hadaba ku jirta 1883 ha isagu waxa uu leeyahay inuu wuxuu qiraya isaga uu suubiyay oo waliba fikir asiga u gaar oo ahaa oo uradii xilligaas jiray oo Israa'iil ay kamid tahay koox walba ay wada calan gaar ah balse uu ka alifay isaga uu soo alifay oo shanta xidigna uu ku matalay shantii Soomaaliyeed cadaanka laga soo qaatay nabadda buluugana laga soo qaatay badan ugu dheer oo aan leenahay miyaas absolutely waa waraysigaas waa daawaday in fact waxaan daawaday more than in qof Soomaali uu daawado laakiin xaqiiqdu waxay tahay Cawaale creditki asaga bilasiyo la yiraahdaa sameeyay ma dhahayo marka anu ma sameyn waa this is expected waa macna waxa la rajay oo ku noqon kara calan gumaysi wuxuu noqon kara calan gumaysi taariikhda anigu dad ma nihin macnaha wixii rabo lagu shubo waxaana dad aqli leh متعلمين waxa loo baahay laakiin laftiina waxaad ku shubaysan dadka waxaan adiga arabtaan maya ma ku shubayno calankii lagu bedel waxaan leenahay Talyaaniga isaga soo biyay kii markii Talyaaniga koonfurta Xoroobis oo la bixinay muxuu ahaa marka oo kan la keenay su'aasha rasmiga oo dadka shacabka Soomaaliyeed qof kasta inuu isweydiiyo u baahanta waxay tahay hadii anagu aan been sheegayno taariikhdii taal 1889 kii calanka buluuga ee xidigta dhexda ku leh asagoo qaybta hoose guduud ay ka tahay hadii uusan surnayn fisha gobyerno 1829 kii haduusan calanka buluuga ee xidigta ku lahayn uusan ka taagnayn Tripolitania hadii uusan ka taagnayn Cernisi oo laba wadan oo Talyaanigu gumaysanaya oo exactly mid ka haysanaa hadii uusan ka taagnayn Cawaale sameey hadii laakiin 1889 kii Soomaaliya uu yaalay 1823 iyo 25 Liibiya uu yaalay isagoo exactly Kenya haduu yaalay Cawaale ma sameey karo waxa u diidaysa taariikhda u diidaysa waxa inta si dheer 1800 macnaha 1820 kii calankan waxa laga isticmaalay qowmiyada kale waxa maanta isticmaalo nala isticmaala oo isticmaala 1920 kiina samaystay ciidamada cirka ee Mareykanka waxa 1926 samaystay ciidamada badda ee wadanka Chile waxa samaystay oo hadda ilaa maanta haysta dadka caabuda shaydaanka intaas oo dhan waa taariikh jirta wax la inkiri kara ma therefore lama dhihi karo Cawaale sameeyay waayahay intaas hadii jirto oo intaas soo dalay isticmaalaysay sideen looga ogolaaday in qaramada midowga laga taago oo la geeyo oo Soomaaliya lagu aqoonsado waaw arintaas waxaan u maleynayaa qof kasta oo Soomaali inuu ka jawaabi karo because powerka ama awoodda markaas jirta waxay ahayd Talyaaniga ma jirin wadan calankaas markaas haysta macnaha markaan ku leeyahay ciidamada cirka ee Mareykanka iyo ciidamada badda ee Chile waa labo institution oo dawladahaas kamid ah laakiin calanka wadankaasi waa ka duwan yahay therefore maadaama Talyaanigu uu awoodaas lahaa asaguna uu watay calanka waa u hirgashay wuxuu wadankii gumaysanay wadanka dul joogay isaga loobi ku sameeyay taariikhda mid kale waxa loo baahan yahay qofka bini'aadamka inuu isticmaalo taariikhdu waa guide iyada wax xigta waxaan rabaa marka inaan u gudbo xidigta iyo waxay tahay xidigta waxa la yiri dadka Soomaaliyeed waxay yiraahdaan shanta Soomaali u taagan xidigta rasmiga ah ee waxa la yiraahdo marka horta waxaan rabaa inaan sheego
waxa shanta gees leh ee maanta anaga xidig u naqaan bulugan waxa uu muujinayo xidig ma waxa shanta gees leh ee anagu aan u qaano inay xidig tahay xidig ma xidigta Allah subhanahu wa ta'ala samada uu ku sameeyay oo ku qurxiyay sawirkeeda rasmiga anaga ma naqaan calanka bal noo sharax waxaan rabaa marka in aan sharxo xidigta asalkeeda meesha xidigta shanta gees leh waxa shanta gees leh xidig u naqaan waxa ay jirtay ilaa waqtigii nabi Muuse alayhi salaam waxa isticmaashay saxaradii la dagaalantay ama ka hortimid nabi Muuse micna ay leedahay oo caalamkan ugu taagan tahay marka hore aan ku hormariyo waa calaamad ay leedahay afar diimood diinta Wicca's oo sixira neo paganism oo dadka cawaanta dadka la yiraahdo kabala oo ah dad musixiriin oo sixirka ay ku dagaalamaana iyo dadka ah satanismka ama shaydaanka caabuda ay u taagan tahay waxay leedahay maray hoos u jeedo iyo maray kor u jeedo labadaba micnaha ay u taagan tahay marka wuxuu yahay oo iyagu si u yaqaanaan ama ay u taagan tahay caalamka waxa weeyaan 5 elements of life shanta shay ee aasaaska waa ama base-ka waa wax alla waxa caalamka jira shantaasi waxay kala yihiin spirit ruuxda biyaha iyo hawada carrada iyo dabka shantaasi u taagan tahay xidigtu qofkii markii ilaa shanta Soomaali u taagan tahay oo qof aan aayad hayn waxaad ogtahay ma laha laakiin anaga waxa uu qaadanay shanta Soomaali macnaha qofkii alifay wuxuu sheegay in shanta gobol oo Soomaali uu ka soo qaado tan aad sheegay xataa hadii shaydaan la cabuday iyo carre iyo bad iyo xitaa ha ahaato laakiin hadii Soomaalinimada aan u qaadano maxaa dhibaato ku jira waxa dhibaato ku jira saddex dhibaato ku jirta waa mid koowaad adiga ma samaysan markaad ogaato inaad adiga samaysan caalankana shaydaan ah adiguna markaad heesayso aad u taagan tahay inaad kufri galaysid waxaana wax kale ay u taagan yihiin maanta aan ognahay waqtigii aan jahliga ku noolin maahanoo dadku aysan waxba ogeyn maanta aan ognahay waxa ku diidan calan adigu aa leedahay oo ka turjumaya taariikhdaada diintaada iyo shakhsiyadaada maxaa ku diidan su'aashu waa waxbana su'aashu waa waxbana waxaan rabaa marka adoo Cabdulqaadir adoo iga raali waxaan rabaa inaan ku daro hal tidoo kale heestan annaga Soomaaliya aan leenahay waxa calanka isla calanka laftirkiisa wuxuu leeyahay hees wadanka Mareykanka loo qaado dadka shaydaanka u qaadaan waxaan rabaa inaan isbarbar dhigo labada heeso tan Soomaaliya iyo tan ay u qaadanayo waxaan rabaa marka inaan tusiyo shacabka Soomaaliyeed xiriirka labada heesood ka dhaxeeya iyo say isku mid yihiin inay meesha marka ka cadaato inay yihiin waxaani wax loo sameeyay design loogu tala galay in shaydaan lagu caabudo waxaan galeynaa heesta calanka loo qaado calanka waxa la yiraahdaa Bonnie Blue Flag waxay leeyihiin we band of brothers waxaan rabaa inaan English ku sheego dan Soomaali inaan ku turjumayo we band of brothers native to the soil waxaana koox walaalaha oo u dhalatay dhulka Soomaali heesta Soomaali maxaa ku jiray carrada kaliga adiga u curada ayagu waxay leeyihiin carradan u dhalatay meaning Mareykanka marka la joogo la dhihi maayo carradan Soomaaliya heesteedan ma dhahayo ciidan lama dhahayo macnaha waa wax mudlaq oo furan talabaad waxay leeyihiin fighting for our liberty with the treasure blood and toil annagu waxaan u dagaalamaynaa oo ugu dagaalamayna xorriyadeena annagoo isticmaalayna dhiigeena hantideena iyo awoodeena waxay leeyihiin marka la cabsiyay when our rights were threatened our cry went far and near marka xuquuqdeennii la cabsiyay oo qalqalay u nagalay ooyinteennii waxay tagtay meel dhow iyo meel dheer maxay ku ooyeen marka waa meesha aan rabo in dadku ay fiiriyaan ooyintoodu waxay ahayd hurrah hurrah for the Bonnie Blue Flag that bears the single star hurrah ereyga hurrah waxa uu la micnayaa exactly caawoy dhah macnaha waxa weeyaan sharaf iyo cizi waxay u sugnaatay calanka buluuga ee xidigta dhexda ku leh isaga ayaan weydiisanaynaa inuu nacaawiyo ereyga hurrah in English dictionary marka laga fiiriyo Webster marka laga fiiriyo ama American Oxford marka laga fiiriyo micnaheedu waxa weeyaan glory be to sharaf waxa iska leh waxa loo baahan yahay saas waa ereyga Soomaaliga marka la yiraahdo caawoy dhaha calanka macnaha markii loo heeso leeyahay adiga kaliga tahay adana caawiya adigan caawinaad ku weydiisanayna caafimaad aan noo keentay wixii naga maqnaa loo keentay intaas oo dhan markii la yiri ayaa waxa la yiri caawoy dhaha labada micno heesood waa isku midkii marka waayahay Sufyaan waa maasan tahay hal qarni ku dhow waxa tahay qofkii ugu horeeyay ee soo fadhiistay ay yiraahdo calanka Soomaaliya iyo astaanta iyo heestaba waa qarado macnaha waa wax shaydaan lagu caabuday ama calaamad kiisana ku jira fikirkaas ma aqoonyahanada Soomaaliyeed kaliya iska leh ma sadana shisheeye iyo wadamo kale ayaa gadaal idinka taagan I'm glad in su'aashaasi weydiisay wariye Cabdulqaadir because su'aashaasi waxa weeyaan wadankeeni maanta waxay cadaynaysaa taas beelaha u yahay faraglis beelaha u yahay wadankeeni cidii rabta ay ibsi karto wadankeeni wada iyadoo la isticmaalay Soomaaliyeed macnaha wax fiican hadaa keentid wax alla waxay rabaan noqdeen waxa lagu leeyahay waa iibsanta
hadda maanta wadanka madaxdeena wadanka markay tilaabo qaadaan oo siyaasadda wadanka ay rabaan inay wanaajiyaan waxa leeyahay waxa ka dambeeya dawlad hebel fikirkaas fikir qalad waa laakiin soo ka maqraq ka ciis in la yiraahdo heblo waxa wada qofkaas wada heblo qofkaas oo wata heblo wada waxa soo saaray iyo beesha caalamka inay u godinayso Soomaaliland hadii arrinkaas isku raaci waayo absolutely waa xaqiiqo jira laakiin waxaan rabaa inaan anaga teena ka jawaabo kooxda kale ku nool iyo Sufyaan Sheekh Axmed ka jawaabo waxa anaga aan wadno waxa weeyaan waa badbaado diinteena dalkeena iyo dadkeena loogadeenu waxay tahay ama halku dhigeen wuxuu yahay difaac diintaada u danqo dalkaaga daryeel dadkaaga micnaheeda taas wuxuu yahay qof bini aadan oo Soomaali ahayn oo nagu raaci kara ama dantaas lahaan kara ma jiro qof Soomaali aan ahayn oo raba wadanka Soomaaliya inuu horumar gaaro wadanka diinta in la difaaco dadka in loo danqadahay ma jiro so therefore qaacidada aan ku soconno ayaa diidaysa inaan noqono dad la soo adeegsaday waxa kale oo taas ku daraya annaga markii aan aragnay dhibaatooyinka calankan uu leeyahay in uu yahay calan shaydaan in lagu caabudayo shaydaanka in wax badan qaldan yihiin waxaan go'aansanay inaan calan cusub samayno oo aan rabno in la qaato jamhuuriyadda Soomaaliya ay qaadato calanka isaga waxa ku yaala tawxiidkii qof bini aadana oo maanta nool oo dawlad kale oo dan kala leh ma nagu taageerayaan inaan calanka aan tawxiid ku qorno midda saddexaad oo raba inaan ku beeniyo inaan dad kale wadanin anagu maxaan dad kale sii karnaa nimanka dawladda ku jira ama xildhibaanada dalka ku dumiyo dalka hadii nalo kuma dumi karo anagu inaan astaanta qaranka loo baabiyo soo dabacna kuma soo boodin astaanta qaranka maqnaadeen aqoonta aad ugu maqnaadeen oo islaha nimanka aqoonta waxbay bedeli doonaan marka imaadeen aadaan astaan Soomaaliya ay calanka wax jira ma ah astaanta Soomaaliya calanka wax jira ma aha micnaheedu waxa weeyaan in la badbaadiyo shacabka hadii markii hore aan qaldanay inaan hadda is saxno waa waxa aan u taaganahay waana badbaado macnaha waxa keenaya in dadku saas u fakaraan oo yiraahdaan nimankan macnaha wadankii bay dhibaato u geysanayaan because waxa kaliya oo maanta Soomaaliya maanta ay u jeedo waxa weeyaan qof walbaaba inuu rabo qofka kale inuu farta ku taago oo aan la ogolayn hadii maanta fikir saliim oo fiican qof keeno waxa lagu leeyahay waa lagu soo iibsan waa wax Soomaali ka jira marka annaga shakhsiyan Sufyaan Sheekh Axmed iyo kooxda talo ku nool ma nihin ama ma noqon karno dad la wato waxaan wadanaa calan tawxiidku ku qoran yahay waxaan wadanaa inaan shaydaan inaan la caabudo meesha inaan ka saarno hadii la rabo wadanka in la burburiyo ama qolada rabtaa wadanka inay burburiso wadanka diin macnaha wadan islaam oo adag kama dhigteen caalamka maanta jiraahina ma rabo diin ma rabo wadan diin oo adag ma rabo therefore anagu ma noqon karno dad la wato marka aad arrimaha diinta aad ka hadashaan oo aad calanka diidaan maxaad uga doontiin kooxahan diimaha dad ku laaya oo fikirka gaarka ah qaba waxa cajiiba hal mar laba su'aalood isku xigta marna inaad tiri gaala ku wata ama macquul ma tahay inuu gaal ku wato marna aad tiri inaad tiraahdo xaq jir maxaad uga duwan tahay taas waxay cadeynaysaa in aan nahay dad wadaniyiin oo runtii u taagan danta wadankooda anagu hub ma wadano mucaarad ma nihin dawladda hadda maanta jirta ama dawladda soo socota ama tii jirtay waa taageersana waxaan uga duwanahay marka koox hub wadata anagu ma ku socono violence kuma socono ama in la dagaalamo waxaan rabnaa dadka inaan ku bedelno aqli waxaan rabnaa dadka inaan ku bedelno cilmi markastana waxaan taageersanahay dawladda jirta xisbi siyaasadeedna qayb ka bayn ama mid diineed ha ahaato ama mid kale ha ahaado 20 sano ugu dambeeyay dadka Soomaaliyeed waxa lagu beer la xabsanaya arrimadin ama macnaha laga keeno ama dal laga keeno ama gudaha dadka Soomaaliyeed qaarkood hal gaalaysiyo dadka Soomaaliyeed oo u dhagan ugu leeyahay marka diin la yiraahdo marka idinku laftigeena arrimaha diinta ka soo gasheen oo calanka waa Kristaan iyo astaantii baa dhahdeen meel taas ay qayb ka noqonayaan idinku la isticmaalay wali dil rabada danash ee gadaal idinka taageen inaad dadka Soomaaliyeed ku beer la xawsataan adigoo diin uga dhigaya in calankooda iyo astaantooda qaranka ay yihiin wax Kristaan oo leeyahay wali Cabdul Qaadir dadka Soomaaliya waa dad Islaam boqolkiiba 100 oo sunniyiin qofku wuxuu yahay lagu ma beer la xawsado wuxuu yahay anigu waxaan nin Islaam marka la yiraahdo Ilaahay ka cabso waxaan ku qasbanahay inaan istaago oo Allah ka cabsado beer la xawsi ma waa xaqiiqda wadanka ka jirta laakiin waxa jira oo xaqiiqa in ay jiraan dad maanta wata diimo kaleeto oo raba inay naga dhaadhiciyaan diimo kaleeto oo aan diinta Islaamka anigu waxaan u taaganahay dadkaas in aan ayaga ka hortagno inaan diinta Islaamka si adkayno inaan dhaqamadii xumaa ee wadanka la qaatay ee Talyaaniga nagu qalday inaan meesha ka bixino waxaan u taaganahay in shacabka Soomaaliyeed uu noqdo shacab wadanka diintooda jecel wadankooda jecel dadkoodana jecel waayahay calanka aad wadataan bal inoo sharciyeeno calanka annaga hadda aan wadano waa calan waxa ku qoran calaamadihii Islaamka oo ah bishii iyo tawxiidkii waxa ku qoran wixii u taagnaa shanta Soomaaliya meeshii shanta Soomaaliya la dhig jiray xidig shanteeda gees ama waxaan shan geeska u taagneed waxaan siina mid walbaaba calaamad u taagan oo gooni ah oo tirsan oo shan ah waxaan sameynay calaamad
midayn ah oo midaynaysa shantaas isku imaanayso rajadeennu waxay tahay shanta Soomaaliya inay isku timaado hal wadana noqoto rajadeennu waa sidaas waxaan rabnaa waxaan u ololeynaynaa waa sidaas waxay kala wadataa taariikhdii iyo boqortooyooyinkii hore ee wadanka Soomaaliya oo runtii ay tahay maanta wax laga naxo in taariikhda Soomaaliya dadka Soomaaliya aysan aqoonin wixii 60kii ka horreeyay ama 50kii ka horreeyay waayahay calankiina laftiina waa bulug shan xidig ayaad macnaha aad keenteen maxaad ku jabnaa haddii midka hadda jira oo Soomaaliya ay waliba ay ku midaysan tahay oo wax dhibaato isaga taageereen idinka ka hor asaxdaan intii dib aan cusub keen leeyahay waxa ka dhiman problemka ama dhibka maanta jira wuxuu yahay laba wax koow annaga ma aanan samayn karin waxaadan samaynin annaga Soomaaliyana waxaana dad sharaf leh waxaana dad islaam ah waxaana dad taariikh soo jireena oo soo yaala leh in naloo sameeyo oo naloo yeeriyo calan mara gobol anagu aan samaysan karno in qof kale uu noo yeeriyo waxaad nooga hooseeyo waxaan qaadan karnaa ma taariikhda waxa ku cad in gumaystii Talyaaniga lagu sameeyay ninkii wadankeena boobay ninka maanta aan rabno waxyaabaha aan soo wadno waxa kamid ah inaan weydiisano Talyaaniga magdhow balaayiin dollar inuu bixiyo oo uu siiyo dalka Soomaaliya dhibaatadii uu noo geystay in la ka mago ayaan rabnaa inaan ka daba tagno marka calan uu asagu sameeyay ma haysan karnaba waxaan rabnaa calan Soomaaliya anagu marka mid kale waxaan rabaa wariye Cabdiqaadir aan ku sheego maalinta ay timaado hadii alla yiraahdo in Soomaaliya ay ogolaato dadku qaato intooda badan waaba qaateen calanka Soomaaliya in la bedelo maalinta ay timaado calanka aan wadano ma aha qasab in la qaato waxa imaan doona in laga wada hadlo waxa imaan doona dadku inay ka doodaan dad badan oo cuqaala dad badan oo mutacallimiin ayaa wadanka ka buuxa oo fikirkeenoo kale uu ku jiro waxaan diyaar u nahay dadkaas inaan la fadhiisano dawladdu inay wado arintan ila dawladda dhamaynayso oo bedelaysa baarlamaanka dawladda markaas jirta ama tan haato ama mid kale ha haato in la sameeyo calan cusub oo Soomaaliya ay samaysatay oo Soomaali dhaqankeedii wata oo Soomaali diinteedii wata midkaas way midka aan doonayo waayahay muddo aad wax soo baranaysan oo dibadda aad ku maqneedeen sida aad sheegteen aad ka fikiraysan dadkii Soomaaliya waxaad u qabateen dhaliil marka laga tagay calanka qaldama ah ummadda Soomaaliyeed waxaan aad u soo kordhiseen oo kala mid jiraan waxaan u soo kordhinay runtii aniga iyo kooxda aniga aan gudoomiyaha u ahay waxaan ka qayb galnaa waxyaabo la yiraahdo ololaha waxbaritaanka bogaagan qornaa waxaan taageernaa hay'adaha waxbarashada ee Soomaaliya ka jira waxaan taageernaa hay'adaha caafimaadka waxaan iska ilaalinaa oo banaanka ka istaagnaa wax lagu xil siyaasadda because anagu sidaan aaminsanahay waxa Soomaaliya maanta ka jira haddaan dhex galno waxba kama qaban karno macnaha siyaasad ahaan marka la yiraahdo laakiin waxaan awood u leenahay inaan ama ceel qodno ama aan isbitaal wax ka dhisno ama aan iskuulo wax ka dhisno ayaan awood u leenahay iyadana waa qabanaa waxaan kaloo awood u leenahay hal iskuul aan dhisteen ama hal ceel aad qoday ma jiraan waxaan ka qayb qaadanay oo ma qayb qaadashan mar hal xab aad qodeen hal ceel xataa ma anagu ceel maanta aan isbitaal aad dhisteen anagu aan dhihi karno may waxaan nahay dad aad u yar 28 ilaa 30 ilaa wixii ka macnaha kooxda gudeen committee guud ma dhihi karno marka annaga waxaan nahay waxaasan sameeyna ma dhihi karno in fact hatta haduu jiri lahaa kuma sheegilayno kuma dhihi lahayn ceelkaasan wadno because siyaasadeena ka soo horjeeda waa sadaqo mar rabna inaan ku abaal sheegno laakiin waxaan ku dhihi karnaa waa ka qayb qaadanay dhismaha ceelal dhisma isbitaal iyo waxbarashooyin muhiimkuna waxa uu yahay anagu waxaan go'aansanaa canshuurtii wadanku uu nagu lahaa inaan iska qaadno ama aan ololo ku sameeyno aan wax uga bedelayno dadka waxaan aaminsanahay wax ugu fiican ee maanta aan qabanay ama aan qabanayno in ay tahay in aan bedelno dhaqamada qaldan iyo taariikhdii la qalday ee Soomaaliya waa wax ugu fiican ee wadan u baahan yahay sida aaminsantahay waa saan aaminsanahay waana sida xaqiiqda waayahay mislaadahay aqoonyahanada Soomaaliyeed oo aad ka mid tahay soddon sano ee ka badan qurbaha ku maqnaa markii aqoonta soo diyaariyeen oo ay oo rabay xilligaas inay waxay soo barteen canshuurada dalka wax soo bartay dalka inay ku celiyaan meeshii laga rabay iyo horumar wanaag soo biyaan inaad la imaadaan qaran dumin iyo dhibaato ma ahna wax kale oo lidinka faa'iido ma jirto wariye Cabdiqaadir waxaad leedahay qaran dumin runtii anagu qaran dumin ma nihin mana qaranka inaan dumino waxaana qaranka inaan dhiso calanka la baabiyo soo qaranka la dumiyo maya calanka la baabiyo qaranka la dumiyo ma calanku waa hal maro oo calaamad noo ah وعلامات اللي يقان سوماليا وعلامات اللي يقان سوماليا لكن waxa aad u sahlan inaan calaamad kala qaadano nala kuna barto caalamka caalan wixii ugu horeeyo iska hadaan iska bedelo wadanka ugu horeeyo caalan iska bedelo ma noqonayno zaira wadana xataa magaciyo bedelan wadamadu magacay rabaan hadii bedelan markay kala go'aan maaha wadankan hadda Congo oo kale la yiraahdo zaira la jiri saddex mar caalankiisa bedelay Ethiopia dariskeena laba maray bedeshay caalankeeda dadku waxa jooga xadaarad wax la yiraahdo jira qofku marka uu ogaado waxaan asalkooda meesha uu ka yimid waxaad ku qasban tahay
tahay inaadan meeshii shala taagnaana aad bedesho haddii adiga maalan maaragtay tusaalan ku siina wari cabdulqaadir markaan yarnahay dhalinyarada ama ragga markaan nahay naynaasaa naloo bixiya naynaasaasay noola socoto markaan odayaal noqono naynaas waa diidnaa sababtaan u diidna waxa weeyaan because waqtigeedii waa laga soo gudbay qofku markuu dhalinyaro yahay ama markuu jaahil yahay ama markuusan waxaan aqoonin waxbaa la qurxoon maalintaad wax baratana wixii sidii maaha calanka iyo heestiisa waxaa la qaaday 6 sano kahor iyo xataa kasii shaa la qaado oo isagana waxa la alif ka tahay 4 meelaha 54 alif waxa alifay talyaani waxa keena talyaani anaga Soomaali aamsanahay calaamadii Kirishtaanka ku jirta oo aan qofna diidi karin marka lagu daro wari Cabdulqaadir lagu daro aan la diidi karin waxa taala taariikhdii man awood marka uma lihin macna aqlina ma aha wadana saas ku noqon mayno in aan wadano heeridii gumaysiga calaamadii gumaysiga inaan wadano anagoo rabna inaan la tartano caalamka marka fiiriso dadka Soomaaliyeed oo idil meel walba joogaan ama shanta gobol oo xigta ay muujinaysa kala joogaan ama dibadda kala joogaan oo qurbaha marka imaado waxa kaliya ay ku midaysan yihiin calankaas inay macna calanka Soomaaliya uu yahay oo cidna aysan diidaneen marka halkii meel oo dadka Soomaaliyeed ay ku midaysan maanta inaad safaan oo aad imaadaan oo aad la dagaalantaan meesha nasiib darro waxaa nasiib darro in annagoo islaam ah boqolkiiba boqol in calaamad Kirishtaani ay ku jirto astaanteena waxaan nasiib darro annagoo islaam ah boqolkiiba boqol intaan xabadka gacanta saarano inaan qaadno hees lagu caabudayo asnam annagoo aan samaysan waxaan nasiib darro in aan haysano calan uu noo sameeyay nin gumaysta ah oo Talyaaniga oo u yimid inuu ku dilo oo wadankaaga gumaysta u yimid waxaan nasiib darro in shacabka Soomaaliyeed aysan fahmin 60 sano waxay ahayd maalintii xornimada la qaatay 1960kii Soomaaliya calan cusub inay samaysato hees cusub inay samaysato waxaan nasiib darro in shacabka Soomaaliyeed wadankii jacaylkii ugu horeeyo micno kaleeto oo qabiil inay jecel yihiin waxaana keenay heeriyada gumaysiga oo wali na saaran waxaan wali u kala qaybsanahay sidii gumaysiinoo kala qaybiyay cudurka ugu badan hadda in la soo qabiilkaas maxaad ugu bilaabaysan waa gelinta inta caanka urdi leedeen oo calanka dhibaato aan xilligan lagu qabin ma dhibaato ka bilowdaan in qabiilka aad ka wacyigelisaan tahriibkan alida ka wacyigelisaan maxay yahay aqoon-yahana ayaa tiin wariye Cabdulqaadir marka anagu aan waxa siyaasaddu waa qaacido sida xisaabta kaleeto qaacidaduna waxay leedahay formula in la dhigo oo la raaco waxa aan sameynayno waa sidaas sheegtay inaan qabiilka bedelno inaan bedelno inaan macnaha haddii la sameeyo calan ka turjuma ama astaan qaran oo ka turjunta diinteena dhaqankeena iyo wadankeena iyo taariikhdeena waxay bedelaysaa sida Soomaalidu ay fakarto waxay bedelaysaa qaabka aan u fakarno wuxuu noqon doonaa inaan diinta jeclaano kow inaan wadanka jeclaano labo qabiilku markaas inuu ku xigo maxaad ugu bilaabaysan waaba iyadii baan ku jirnaa waabtan ku dhaxay bedelida calanka wari Cabdulqaadir waxaan ku yiri inaan calanka bedelno oo aan macnaha calanku waa dhambaalwada hadda Soomaaliya hadii hadda maanta lagu weydiiyo nin wariyaha tahay ama qof kale Soomaaliya dil weydiiyo leeyahay calankan Soomaaliya ee shangeeska cad dhexda kule ee buluuga ahi muxuu Soomaali uga taagan yahay qof Soomaali shay kar male qofka ugu dhow wuxuu ku leeyahay waa cirka oo kale cirka kaligeen ma lihin waa badda oo kale badda kaligeen ma lihin qof Soomaalnimo ka mid Afrika tan ugu dheeraanayna may Afrika tan ugu dheer ma lihin Madagascar ka dheer Madagascar South Africa ma waa ka bad dheerta ma lihin so therefore banaan caran ku dhaganahay waa wax noo akhriyay macnaha calankiiba marka adiga ka turjumaayo seerta marka inaad wadani ku noqotid haddaan ba calankaagii astaantaadii iyo diintaadu uusan ka turjumaynin ma noqon kartid wadani diinna ma haysatid laakiin xanuunka qofka meesha ka soo lama baarba qofka daawinay bini'aadanka ah jir ahaan oo qof sida Ilaahay u abuuray meesha xanuunka ku hayso ma in la abaaro absolutely wari Cabdulqaadir aad u saxantaa because annagu waxaan aanay Soomaalida marka fiirs muxuu ku leeyahay xanuunka Soomaaliya wuxuu yahay diintii oo laga fogaaday iyo ayagoon wadaniin ahayn daaris xanuunka ma bartaan marka inta ala bedeleedeen waxaan ku bari lahaynba wadan marka la rabo anagu siyaasiinana in kala qaadmiyo ku baraysan maya Cabdulqaadir anagu siyaasiinana 22 sano aan soo barinay siyaasadda marka wadan la rabo in la bedelo ama bulshada rabo in la bedelo waxa laga bilaabaa symboliska dadku uu leeyahay macnaha waxyaabaha dadku uu isku raacsan yahay oo faahirsan yahay calanku macno weyn uu leeyahay waa hanuuniyihii wadanka hadduusan calankaagii kugu hanuunin karin wadaninimo iyo diin hadduusan kugu hanuunin karin wax waa wixii ugu horeeyay ee la rabo wadanka in laga dhiso ka maqan wixii ugu horeeyay la rabo wadanka in lagu hanuuniyo ka maqan ma sameey karna marka waa nolol kugu tala galayba Talyaanigu markuu calankan dulshiisa naga saariyay waxaan nolol kugu tala galay waligeen inaan isqabsan oo saan ahano inaan wadaniin noqon waa nolol kugu tala galay dawladihii kale waa iska bedel Libya waa iska bedeshay calanka Talyaanigu sameeyay Eritrea waa iska bedeshay Shanki China waa iska bedeleen kulligood waa la bedelay dadka kaliya ku haray waa annaga calanka marka aan bedelno hadii
الله سبحانه وتعالى يرضى وبدلنا قميصي سو اسكن بدل كعلنك قميصي ان سيمنو كان انصار مايا ما انا بدل علن كاني وعلن كي كلو اي مالدا كون يا 889 كي وري عبد القادر wuxuu surnaa fiisha gobyarno asagii laftirkiisa dawladda hoose Soomaaliya dawladda hoose Soomaaliya therefore ma aanan bedelin hadii aanan bedelin marka waa waxna la kugu talagalay in la ka siibo wadanimada iyo diinti haddaan kan iska bedelana sida aad sheegtay ayaan noqonaynaa waxaan noqonaynaa dad wadaniyiina waxaan noqonaynaa dad diintooda jecel waana qorshe aan wadno waayahay dhibaatooyin kale ee haysta ee dadka Soomaaliyeed marka laga tago in la bedelo wax kale oo idin qorsheysan oo aad rabtaan inaad qabataan maadaama aad marna dhacday siyaasad inaad ku booddo marabno haddana aad dhacday siyaasad uma soo baranay lafteeda soo iskama hor imaanayso siyaasadda markaan soo baranay aniga khaasatan siyaasadda aan soo bartay waxay tahay siyaasadda rasmiga ee macnaha marka la yiraahdo siyaasad Soomaaliya hadda dhaqanka ka jira iyo dadka Soomaaliya xilka hayahay ma aha siyaasiyiin ma siyaasiyiin lama yiraahdo waa nabadoono siyaasi ma aha siyaasaddu waxay leedahay nin aan takhtar ahayn ama aan surgeon ahayn oo wax qali aqoon ma u dhiibanaysa inuu ku qalo waa maya nin aan siyaasaddu wax la barto waa dhowr iyo 10 sano jaamacada lagu nin dhowr iyo 10 sano jaamacada ku soo dhigtay oo siyaasi maanta Soomaaliya hadii raadiyay aad u yiriya ninka ugu dhow wuxuu soo bartay wax la social studies ama barashada bulshada inuu soo barto micnaheedu markaan taas kale waxaan ka wadnaa annagu siyaasadii aan soo baranay inaan wadanka ku shaqeyno waa wadnaa inaan ku shaqeyno hadda waxa kamid ah in aan wadanka ka dhigno dad diintooda jecel wadaniyiin ah waxaan ka dhigaynaa annagoo isticmaalayna miiriyaha iyo aqliga iyo strategy qaacido qoran oo caalamka dhan la og yahay inay shaqeyso inaan isticmaalno shaqadeenu taas waa waxa soo haray waxaad weydiisay waxyaabaha kala rabo inaan ka shaqeyno waxaan rabnaa inaan tirtirno mesela waxa la yiraahdaa haybta koorka oo qof Soomaali kale uusan ka hoosay waxay keentaa arintaasi marka